السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سيتي في عندي عافمات كينا أنا وإذن في عنا ما شاء الله إذن كانوا وحان رجينا إنا عافمات قبتينا رجينا ما شاء الله وإذن ما هاد علنا سيدا قروح بدنا يقول سعوتين كومنت دي يقول قرتين لايك تدين وأركا ما شاء الله وكم هاد علنا يا لا لا قدال إيجا سو درسمين وما هاد علنا رنتي ماش كسي ودا إذن لي دذلك ودين meesha kasii wada idin leey waan idin mahadcelinaa maasha allah walaalahayga waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ay igula socotiin yaa maalmahan dambe waxaan maqalnaa jabuuti yaa baraha bulshada isla qabsatay oo waxaa waaye dhib badana jabuuti kasoo yeeray inkastoo la leeyahayba hadda ma bilaabanin sheekada markii la maqlaayo ma arsideeda banaanba oo dadweynaha iyo shacabka iyo miidiyaha isqabsanaysa waa sheeko hoos kasoo socota moogta hoos ay kasoo socota muddo hoos ka socota laga yaabaa marka baraha bulshada marka isqabsanaysa waa sheeko mar hore soo socoto wadanka gudihiis kasoo dhex socoto laakiin waxaa waaye wax kastaba markay yar yihiin ma aragto lama fahmayo mogtahay markay weynaadaan ubada dhibkii markuu weynaado unbuu banaanka usoo baxaya hadda Fuaad iyo dad lamid unbaa lagu ogaada dhibka Jabuuti laakiin si dadka sheegayaan iyo xog badan haddaan raadiyay waxaan arkay Jabuuti dhibkeeda inuu soo socday muddo badan inuu soo socday hoos ahaan kasoo socday waxaa waaye laakiin Jabuuti ana hadda xukunka Jabuuti ka jira Jabuuti ma joogi xukunka ka jirana kama hadlay waxba kama dhahay inkastoo hadda dictatorship uu yahay laakiin waxba kama dhahay laakiin waxaan ka dhahay waxaa waaye reer Jabuuti oo haddii hadda aad lacala oo Ismaaciil Cumar Geele iska ridaan oo dhahdaan anaga Ismaaciil Cumar Geele nama anfaca waa nin dictator waa nin saan nama anfaca haddaa dhahdeen maxaa idin diyaarsan waayo ana halahaas yar bas aan ku darsan rabaaba maxaa diyaarsateen maxaa rabtiin sidii wadamada kale in la kala geeyo sidii Soomaaliya sidii Liibiya waa ogeedeen wixii ku dhacay Suudaan darad u dambeysay waa ogeedeen wixii ku dhacay dhibku ku dhacay dhib yar ma ahayn ilaa ay hadda burbursan tahay oo isku kala daadsan tahay waxaa kasii daranba Liibiya oo dhibka ogaanta ka dhacay waxaas dhan waxaa waaye ninkii isku hayay hadda iska rideen shacabkii waxay diyaarsadeen ma laha ajnabigiina wuu ka faa'iideystay dadka soo farageliyeen way ka faa'iideysteen marka waxaa waaye in la isku keendiro sidii dadkaas camal maan rabtiin inaad noqotiin mise waxbaa idin diyaarsan oo dagaal iyo buuq iyo qayle iyo isku dhac fara badan idoo dhicin ma rabtiin inaa caadi aad u doorataan qof ma aha miyaha dagaal inuu dhaca hadda u malaynaysiin oo sidii wadamadaas camal aad noqonaysiin u malaynaysiin iska dhaafaha iskaga fadhiyo odige maxaa yeelay bedelkii la shaleyn lahay oo la dhihi lahaa allah hadda ay way shaleynayaan soo marka kuwaas kale way shaleynayaan ilaa kuwaas kale idinka waxa isku barbardhigay waxaa waaye dictator isla yihiin mogta shacabkii aan kasoo horjeestay mogta ayaga idinkana shacabka hadda kasoo horjeesanay 80% shacabka hadda Ismaaciil kasoo horjeesanay kuwaasna saas camal waxay ka faa'iideen malaha marka maadaama waxba ay ka faa'iidin ana waxaan qabaa hal iska dhaaf asaga ha iska saarnaada ma aha miya ma saarnaanayso maaha idinkoo isdiyaariseen oo dadkii ninkan bedeli lahaay oo dadkii micnaha oo dad aqoon leh oo asaga ka aqoon badan shacabka jecel yahay diyaarsan inaad sii diyaarsatiin dagaal idoo dhicin way fiicnaan leh laakiin hadduu dagaal dhacay dhibaato waay oo waxba laga faa'iideynin maxaa yeelay ku cilmi qaata Soomaaliya oo si aad baa sida ogaanta janna faraha u geliya arki waayeen markii dambana hadduu carar lehna way bedel lahaayeenba asaga farac dil ku baxsad ma ahane hadduu carar lehna sii joogi lahaa Allah u naxariistay Siyaad Barre maxamed Siyaad Barre jannada Allah ka waraabiye hadduu sii joogi lahay waaba laga taqsul waaba sidii la yeelay Liibiya ay yeeleen ay yeel lahaayeen qadaafi sidii la yeelay ay yeel lahaayeen Soomaalida asaa baxsada farac dil ku baxsad ma ahane marka ceeb weyn aan ka hadda inta Soomaaliya ceeba taalmalay markaas ay kasii darnaan lahayd maxaa yeelay madaxweynahooda dileena imaan lahayd marka inuu baxsada balqaatib hadduu baxsan lahayn way dil lahaayeen kadibna history ay gal lahayd sida hadda ugu gashay Liibiya marka wax fiican ma ahan ku cilmi qaata Muammar ninkan la leeyahay Suudaan North madaxweynahooda Al-Bashir ku cilmi qaata Maxamed Siyaad Barre ani Maxamed Siyaad Barre ma badhihi karo dictator ahay laakiin waa u gashay listiga u gashay Maxamed Siyaad Barre ku cilmi qaata Allah u naxariisto ku cilmi qaata Al-Bashir ku cilmi qaata oo Suudaan waxa kale ku cilmi qaadatiin magaceeda Zimbabwe ku cilmi qaata inkastoo Zimbabwe ay burburin hadda waxba dhib uu soo gaaran iyadana dictatorship fara badan muddo haystay moogtahay iyadana ku cilmi qaata
waxaa kaloo ku cilmi qaadatiin libiya ku cilmi qaadata libiya horta wax ka daranba ma balahanba libiya wax ka daran ilaahay uunti ma laha libiya waaba dhibaatada ugu weyn libiya haysata dadkaas jannaha faraha loo geli dhibaato ma haysan nolol fiican ay ku noolaayeen bilaadan horta abaal ma balahanba bilaadan wuxuu abaal ku leeyahay waxaa waaye ninkaas aniga waxaan isbarbar dhigi karaa ninkaas qadaafi maxamed qadaafi iyo waxaan isbarbar dhigi karaa aniga iyo maxamed siyaad barre waa dad oo maasha allah oo waxaan dhihi karaa waxaa waa wadani waa ma barbar dhigi karaa maxamed siyaad barre iyo qadaafi ma barbar dhigi karaa albashiir iyo hataa ma barbar dhigi karaba iyo kii oo Zimbabwe ma barbar dhigi karaba aniga waxaan labadaas isku meel dhigi haddii dhinaca muslimnimadan way common ka yihiin mugtahay dhinaci kale waxtarka iyo geesinimada iyo sida u hadlayaan iyo sida dadkooda wax u tarayaan iyo dhaqaalaha wadanka kasoo bax dadka say ugu soo celinayaan labadaas aniga waa isbarbar dhigi waana isku mid waa laba qof oo kala dheereen wax qabadkooda labada noocaas ahaayeen sidii loo galay waad ogeedeen oo si xun ayaa loo galay si xun haddana kaaga daranka dadka saas u galeen dad banaanka oo ka imaad haddii ahaan lahayeen waxbaa waa u garaabi laheen waa dadkii oo u falay dad u samfalay oo dadka wanaagaas uu sameynay aa kusoo noqdeen waxa ka xunba maba lama dadka adi xukumaysi oo aayahooda aa ka fikiraysi cadowga ka difaacaysi hadday kugu soo noqdaan waxa ka xunba maba lahanba cadow taas wax ka xuma dhibaato ka weynba moo jirtaba marka reer Jabuuti oo waxaan kusoo gabaynayaa aayihiina ka tashta haddii wax dhaama ninkaasi la waayna dagaal inuu dhacaa u malaynaysiin ha ku fadhiya kursigee dhaafa dhiig daata waa lasoo arkay kheyr ma lahan faa'iido ma lahan dhibaatou leeyahy halahaasaan kusoo gabaynayaa wax badan inaan dhaha uma soo galin dhammaantiin waa idin jeclahay waan idin mahadcelinaa sida quruxda baan igula socotiin waa idinkaga mahadcelinaa waa idin jeclahay maasha allah meesha kasii wadaa idin leeyahay walaalahayga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن ليه باي باي.